suuraddani makay ku soo degtay aayadaheeduna waa 15 aayadood 7 jeer ayuu ilaahay dhaar ku celcelinaya u fiirso ilaahay wuxuu inooga baahan yahay ma jirto xaqiiqatan dhaartiisuna waa run weeyaan marka uu ilaahay inoo dhaaranayana kani adayga makhluuqaadka bini'aadmiga abuu og yahay oo bal ninkii damiir lihi inuu is yidhaahdo war ilaahay ku abuuray ku arsaaqayay ee habeen keliya aana dun irbad u gelin inaan kaaga baahnayn maxaa kalifay inuu intaasoo dhaarood istaba dhigo inuu ruuxu fikiraa la rabaa oo waliba wuxuu ilaahay maraka dhiganayaa makhluuqaadka ilaahay oo manfacada inoo geliya adduunyada aynu haysanno sababta uu ilaahay u dhaaranayo u fiirso wuxuu ilaahay leeyahay dadow adiga iswanaajin kara adigaana isfasahaadin kara adigu haddaad wanaag naftaada la damacdo anigu ku hadimayn maayo haddaad xumaan la damacdana adiga ishalaagaya ee ilaahay ha eersanin qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi washamsi qorraxdaan ku dhaartay waduxaahaa iyo barqadeeda e haadaa dambe waa magacuyaal bronown bay yidhahdaan gaaladu waxay yidhaahdaan waa damiir af carabiga magacuyaalkaasi wuxuu u noqonayaa cadceedda washamsi qorraxdaan ku dhaartay waduxaa iyo barqada haa cadceeddu ay yeelato habeenku barqa ma lahan sababtoo cadceed baan jirin barqayaa goormaa barqa la hela markay cadceedi timaado marka barqadii waxaa loo nisbeeyey inay cadceeddu leedahay cadceeddiiyo barqadeedaan ku dhaartay walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa goorta talaa uu soo dabagalo haa qorraxda maxaa looga jeedaa waa maalinta habeenka 15aadka markay cadceeddu liiqa dhigto ay dhacdo ayuu isna halkaa ka soo baxaa isagoo daba ordaya oo dhammaystiran oo 24 saac markaas 15aadka dunidu waa wada iftiin 12 hore cadceedda iftiiminaysay 12 dambe qaalibkeedana waxaa iftiiminaya dayaxa marka waa waqtiga dunidu ay wada iftiinka tahay oo marna caddaa lagu jiraa marna cadceed baa lagu jiraa walqamari dayaxaan ku dhaartay waa mashhad aad u qurux badan weeye xaaladda sidaasa markaad miyiga joogto ama meelahaan iftiinkiiyo laydhka lahayn ashqaraar qurux baad la yaabaysaa dayaxaa i dhibay xalay intaan daawanayo wadnaha igu daalay indhaha igu daalay marka haddaad meel cidla ah intay gud tahay oo barwaaqo tahay aad intaad meel bannaana aad gogoshaada dhigato dayax 15aadii kuu soo baxo naftaaba mabsuudaysa walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa goorta talaa uu soo raaco dabagalo haa qorraxda wannahaari maalintaan ku dhaartay idaa goortii jallaa uu faydo haa qorraxda cadceedi goormay timaadaa marka maalintu ay faydo oo maalintaa diirka ka qaada wallayli habeenkaan ku dhaartay idaa goorta yakshaa uu daboolo haa cadceeddii daahan weyne iminka ina kala dhex maray innaga iyo cadceeddii waa habeenkii wuu daboolay markaa iftiinkii maalinnimo iyo cadceeddii wallayli habeenkaan ku dhaartay idaa goorta yakshaa uu daboolo haa cadceedda markuu idinka xaajiba idinka celiyo idinka daboolaan ku dhaartay wasamaa'i samada idinka sarraysaan ku dhaartay wamaa iyo axadkii banaa dhisay haa samada allihii samada taagay baan ku dhaartay waalardi dhulkan aad ku socotaan baan ku dhaartay wamaa iyo allihii daxaahaa fidiyey arladaas wanafsin sanku neeflaan ku dhaartay wamaa iyo allihii sawaaha dhammaystiray ee kaamil yeelay naf kastoo uuman allaha dhammaystiray ee kaamil yeelay baan ku dhaartay oo fa alhamahaa baray ee ku toosiyey fujuuraha sida samaheeda iyo wa taqwaaha iyo fujuuraha sida dembiga ah wa taqwaaha iyo sida alla ka cabsigu ku jiro markuu aadamaha uumay eebbe laguma dhaamee dhaqaaqmo odhanin caqli iyo garashana ilaahay kama siibine wuxuu ilaahay ku ilhaamiyoo baray callama wuxuu ilaahay baray fujuuraha sida aan fiicnayn iminka rixim goysnimadu adigoon diinba laguu sheegin inay xun tahay waad garanaysaa khamri inaad cabto caqligaaga waasho ayadoon diinba loo kicin inaanay fiicnayn waad garanaysaa inaad naf aan dembiba lahayn oo aan ilaahay tabaaraka wa tacaala ka kufriin inaad haanka goyso inay xun tahay waad garanaysaa adoon diinba u eegin
yaa ku baray waxa weeyaan ilaahay markuu ku abuurayay baa maskaxdaadan yar ayuu ilaahay jib yar buu geliyey oo ku borogaraamiyey inaad ku kala garato xumaha iyo wanaagga taasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala haddana rasuul iyo kitaab uu ka soo dabadiray faalhamaha ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey oo uu ku tababaray makhluuqaadkii iyo sanku neeflihii bini aadmiga ahaa fujuuraha sida dembiga iyo faajirnimada ah wa taqwaaha iyo naftaas sida cabsideedu tahay alla ka cabsigeedu yahay ayuu ilaahay ku ilhaamiyey qad aflaxa waan dhaartay oon dhaartay 7 jeer baan idiin dhaartay waxa xaqiiqo ahoo la hubaa aflaxa inuu liibaanay man axad kasta oo zakaa nadiifiya haa nafta aynu soo sheegnay nafta ammaanadee kugu jirta haddaad wanaag la doonto waad liibaantay ogow waqad khaaba waxa la hubaa inuu khaaba hankaagayoo hoogay man axad kasta oo dasaa hoos u dhigay oo cagta hoosteeda geliyey haa naftiisa ninkii naftiisa dulleeya ee isagu dacaska saare ee cagta hoosteeda geliya sharafta u diida ee naftiisa uskageeya xaqiiqo ee kaasina waa la'aad wax jira ma aha wuu hoogay kaasuna intaa markuu ilaahay inooga warramay inaad naftaada adigu ihaanayn karto iyo inaad naftaada adigu karaamayn karto oo ilaahay adiga taa kuu igmaday laa yugayiru allahu maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim axadna ilaah ma dooriyo ilaa uu isagu isdoorsho adigaa samaha dooran kara adigaa xumaha u baydhi kara ku sitasho oo lagaaga tegi maayo caqligan iyo garashada ilaahay oo xayawaanka kula dheeraysiiyey hadhow waa lagu su'aalayaa ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waa lagaala xisaabtamayaa xumihii iyo samaantii horaan kuugu borogaraamiyey siday kale yihiin kitaabna waan kuu soo diraa lagu odhan doonaa intaa markuu ilaahay ka warramay ayaa ilaahay wuxuu inooga warramayaa dunidan maanta aynu ka talinno inaynu maanta kuwii ugu horreeye ka talin jiray aynaan ahayn rag kale oo adduunyadan joogay oo camaaliqo ah oo laxaad badan oo xoog waaweyn baa jiri jiray raggii markii ay samaha diideen ay dariiqa ka leexdeen taariikhdoodii way abaadday tii baa ilaahay ka warramaya kadabad way beenisay hamuudu qowmkii hamuud la odhan jiray waa nebiyullaahi saalix ummaddii loo soo diray bay ahaayeen bidaqwaaha maxay ilaahay u beeniyeen iyo rasuulka bidaqwaaha bisababi طugyaaniha addugyaan waa kibirka iyo santaaga isla weyni baa halkaa dhigtay baa ilaahay yidhi markay reer hamuud nebigooda beeninayeen wax sabab ahoo kale ma jirin isla weyni baa keentay duqyaankeedii iyo isla weyni bay ku lumeen nimaan qooqdilin maroodi ma dila bay soomaalidu tiraa weliba waxay aad iyo aad u sii fogaadeen id wakhti inbacaa uu dhaqaaqay ashqaaha kii ugu ayaanka darnaa reer hamuud waxay mashaakilka ay halkii ugu dambeeyey ay gaadhsiiyeen markii ay direen ay igmadeen oo yidhaahdeen waar gureeyow waxaa la odhan jiray qudaar binu saalif baa la odhan jiray war hashan war ina wareerisay hashan iyo yaanu u ducaynaayo hashan nagaga filaanaya kii reerkaa ugu ayaanka darnaa ugu nasiibka xumaa oo qudaar binu saalif la yidhaah baa dhaqaaqay dabadeedna hashii buu haanka jaray tii buu ilaahay ka warramayaa hashan qanaaqatallaahi baa la yidhaahdaa laakiin soomaalideennu idiin bacatay u taqaanaa idiin bacaa ayay soomaalidu tidhaahdaa oo cabdigahirwaaki markuu gebyay lahaa idiin bacaa awrkay dhashiya aarankay wadatay aakhiro nimaan geel lahayn lama ammaanayn marka idiin bacaa hasha magaceeday iyagu u yaqaaneen idiin bacana waa id inbacaa waxay kibirkii meel halkii ugu sarraysay garaafka ay gaadhsiiyeen id wakhtigii inbacaa ay inطalaqa markii uu dhaqaaqay ashqaahaa reer hamuudkoodii ugu ayaanka daraa markii uu dhaqaaqay ayay arrintii xumaatay faqaala intaanay tallaabadaa reerku qaadin digniin baa ugu horraysay faqaala lahum wuxuu ku yidhi qowmka reer hamuud faqaala wuxuu ku yidhi lahum iyaga oo reer hamuud loo jeedo rasuulullaahi rasuulkii alle nebi saalix
وحكويد ناقة الله دعوا فرها كقادة ناقة الله هشا إلهي هودواننا ودعوا إسكاغتغا سقياها مالنت أي عبي سنها كقر دينين كتغا فكذبوه نبي الله ويكبينيين فعقروها ويبقنا قويين هشي فدمدم وبربريي عليهم دشودا ربهم رب جود وبربريي ريثمود بذنبهم سببتنا وحي أهيد دنبي قالين فسواها ولب عقابك وكسمي ريثمود هل نف كما بدبادين ولا قسمي ولا يخاف إلهينا كما عبسقبه عقباها إنه لقد ضبي ما دؤه أنا ذا إن إلهي لو قبصدو إلهي كعبسن مايو ومحال ريرك يجي أبا بإسي iyo godobtoona ilaahay kama cabsanayo